السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalkiina cabditaasha cabdiraxmaan oo idin leh mar kale soo dhawaada qaybteena toddobaad. maasha allah tabaaraka allah. turki karoon waa loo bogay maasha allah tabaaraka allah. sidaan hore idinkugu sheegay marka koowaad ani waxaan isticmaalaa kan ayaantan isbuucada la soo dhaafay. kan markaa isticmaalo kadib midka kale oo labaad isticmaalo and then markaas kadib aan isticmaalaa saliideeda insha allah. marka hadda kanaan kuska boorka inaya marka sidaan hore idinkugu sheegayna kan waxa waaye cirbadihiisa zaaid ma ahan. kan kale xoogaa waa ka cirbada roon yahay laakiin normal waaye kan haddii aan ku dhejinayo xataa xanuun waa dareemaya, laakiin xanuun sidii ka kale aan dareemayo marka inaan ku dhajiyo ma dareemayo. soo marka videoga hadda ugu dambeeyay dad badanaa waxay ugu soo dhaheen xoogaa codkaaga daciifa, codkaaga si fiican loo maqlaynin. maaqaa marka sababta kale isku sii laan codka usoo duuba aniga mar walba maanta. soo marka waana day 23 maasha allah. day 23 waaye turki karoon fahanteen. maasha allah kuley dad badan oo maasha allah oo wax badan isoo weydiiyey waa arkay oo asxaabta ah. dad badan oo qaarkood ay dad negative ah oo waxay doonaan iska soo qorayaan, waxay doonaan soo sheegaya waa arkay. soo marka insha allah waxaa ogaataa brada ama walaashay wax walba adiga aad soo sheegtid aniga mowqifkayga iyo hadafka aan leeyahay ma bedelaayo. wax walba adiga aad soo tiraahdo oo negative ah kuley adilay ku dhibaysaa, adi negative aan kugu soo laabanay. aniga waxba maadan iga hadlaynin, wax dhibana maadan ii geysanin, kuley afkaaga wixii ku jiraa sheegtay. laakiin weligaa waxaa ogaataa muhiimadda waxay tahay haddaa soo aragtay dad markii la forjaya ama la caayo ama markii wax la dhadhaho hadafkooda bedelayo, it's not me, ani maha abditax maaha, waa qaldamaysaa. marka qofka aqoonta leh oo aqoontiisa isoo sheegayana maasha allah kuley waxaa ogaataa sida culamada qaarkood ay isku haystaan waaye. kuley qofka wax yaqaano, qof markuu aqoon leeyahay ama wuxuu yaqaano oo arko, qofka kaloo wixii isticmaalaya markuu arko uu ixtiraamaa. laakiin qof haddaa aragtid marba qof kala dhaxaayo waxaa samaynaysid waa qalad, waxaa yeelaysid waa saan, waxaa waxba kama jiraan, qofkaas isagaa jaahil ah. so marka just marka hore adiga naftaada waxbar, markaa naftaada wax bartid kadib qofka walaalkaa wax u sheeg, ma fahanti? laanno aqoon aanan xushmad iyo ixtiraam lahayn aqoon maa, jaahilka aan waxba garanaynin oo laakiin dadka ixtiraamaya kaa qiimo badan. marka insha allah biidin illah ma ku dheerdheeraanayo, mana rabo inaan dadka qaar u jawaabo. laakiin waxaan arkay dad xoogaa commentiyadooda markaa fiirisid waxyaaba ay ku hadlayaan qof weyn oo caqli saliim ula oo ku hadli karin. laakiin mid ogow, si kastaa u hadashid iyo si kastaa wax u sheegtid, aniga hadafkaan leeyahay adi ma bedeli kartid. adiga iska daaya kumanaan adigoo kale haddii yimaadin xataa hadafka ani aan leeyahay wax aniga aan rabo inaan sameeyo ma bedeli kartid. marka just waxba yuusan hadalkaa tegin, waxba yaha isdaalinin, fiirso wixii haddii ay ku anfacayaan maasha allah, hadday ku anfici waayaan ignore garey ka tag. laakiin waxaa la yaab ah qof wixiina fiirsanaayo oo haddana dhahayo waxaan wax jira maaha, waxaan saamaya markaas okay, waxaan wax jira maba ahane, maxaa waqtiga isaga dhuminaysaa? mise waqtigaaga qiimo ma lahaaday? laanno ani just waqtigayga hadduu qiimo leeyahay waxaan aniga rabin marka arko ma kulluus garaynaya timekeyga, laanno waxaa aniga rabaan gelina aan ku fiirina ama aan ku samayna. wixiina waa dhahaysaa saan waaye kan waaye waxaa ka sheegaysaa, haddana wixii waqtigaa ku dhuminaya waa fiirinay. taasaaba caddaynaysa marka adiga inaa qof hadaf leh aadan ahayn. marka please inta wanaagsan oo wax wanaagsan raadinayso ha adiga xumaantaada ha la soo dhexgelin, xumaantaada dad kaloo negative la raadso, ma fahanta? annaga waxaa meeshaan u imaana aan samaynayna waxay tahay qofka sideedaba wax markuu isticmaalo uu yidhahdo waxaan aniga waa isticmaalay ama waxaan saanaa ka dhaca ama waxaan saan ka dhacay, uu bataatanba wax ka sheegi karaa. waxaa arkaysaa qof darmalolkii aanan garanaynin wuxuu yahay macnihiisa, aanan weligiis isticmaalin,
saliidda macnaheeda aanan garanaynin weligiis aanan isticmaalin haddana wax ka sheegaya ku dhahay dermarolka sidaan u sameeyaa dermarolka kana wax u dhimaa dermarolka raganimada wax u dhimaa saliidda timaha raganimada wax u dhintaa kanee ka dhacda sidee ku ogaata maba tijaabin adiga waxaan weligaa maadan samaynin wax oo isticmaashay ma aha sidee ku ogaata markaad waa uga hadlaysaa taas macnaheeda waxay ku caddaynaysaa shiiqul kulli inaad tahay waa daadiyina waa soo aragnay waa kasoo dharagnay so marka just haddaa qof wax og tahay ummadda waxaa taqaano oo bandhig qof wuxuu yaqaana ummadda la wadaagayna haddaa aragtid waa xaasidkana sidiisaba horaa loo yiri ma liibaano mana aflaxo so marka hadalkiina meeshaasaa ku xiran ma aha dadka dhan inaa la wada hadlaayo inta xaasidka waxaan la hadlaayo iyo inta aan dadka walaalkood waxba u quurin ma fahamta so marka just waa mahadsantihiin my lovely family idinka dhan ma idin wada aha laakiin inta yar oo ku jirto waxaa dadka qaar u jawaabo marka kulli ma wada jawaabin dadka qaar caytama arkaysaa laakiin ma idin caanaanay laana waa ka weynahay qof oo inuu meel soo fariisto qof kale aflagaadee ma fahamta alxamdulilah so marka just I do myself wixii aan arkay inuu wanaag ii yahay wixii aan arkay inaan qof walaalkay ku caawin karana waan ku caawinaya that's it marka waa mahadsantihiin my lovely family asxaabta badan oo ila soo xiriirtay qaarkood aan caawiyey qaarkoodna aan wali caawinin oo weli isugaayo marka waa idinka mahad celinayaa sida sharafta leh oo ay idinla soo xiriirtaan insha allah walaalkay ama walaashay qof walba caawinaad u baahan just insha allah fariintaada meeshaan iigu dhaaf ama whatsappkii iigu dhaaf insha allah anaa kula soo xiriiraayo wax alaal waxa awooda aan kaa caawin karana waan kaa caawinaya without shuruud la-aan iyadoo aan wax shuruuda kugu xirin marka waa kaaya waa idin salaamaya sida u wada dhantihiin meel walba adduunka joogtaan my lovely family one love waxaa fahmi kara kulley qofki qalbi leh إن شاء الله بإذن الله وأهدين سلامة يا سعودة دنتين كله تركي كرام يدرمرو إنك أودو أو هيستو سأسوان غنائبو ما أنت بريغان ملكي ريسكا أسوان غربابو إنك استو دا يسوان غنيني الحمد لله ما أنت أنا كو قصارين الحمد لله هذا حواي sheebkaaga iyo quruxdaada iyo naftaada qof aan naftiisa ka taxadirin naf kale wax uma tiri karo so marka way wanaagsantaha mar walba inaad naftaada marka hore wax u qabatid kadib aad adigana caawin kartaa ilmahaaga caawin kartaa xaaskaaga caawin kartaa walaalkaa caawin kartaa laakiin marka hore just naftaada wax u qabo haddaadan naftaada wax u qaban karin you are nothing qof kale maxuu ma taraysid ha iswareerin bant hadalkaaga wuxuu kusoo ekaanayo kaliya war iyo meelaha inaad kaga qaydlisid iyo meelaha inaad wax ka dhadhaadid taasna waxay kugu tarayso oo ilaahay abuurtay ma jiraan marka intaadan iswareerin marka hore adiga isku macnoo and then kadib qof kale ku sheegtay dadka isku mid maahan waxaa arkaysaa dad maasha allah yaryar haddana caqligooda maasha allah uusan caadi ahayn oo hadallada ay ku hadlayaan qof weyn hataa uusan ku hadli karin iyo dad waxaa arkaysaa dad waaweyn oo kelmadaha afkooda kasoo baxaya xataa caruurta yaryar ay ka xishoonayaan marka bini aadanka waxaa waaye garaadka ilaahay naga siin waa idin salaamaya saa wada dhantihiin meel walba adduunka joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu